kulanti wacan halkani waa wararka online ku soo dhawaada qodobada wararka duurnimo maanta waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay weerar xoogan oo ka dhacay Jubbada Hoose iyo Jubbaland oo sheegtay inay ka hortageen weerar qorsheysan oo al-shabaab ay maleegeen galmudug oo ka hortimid go'aan ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya Kenya oo mar kale cirka ku shareertay xiisadda iyada iyo Soomaaliya u dhaxaysa Itoobiya oo Soomaaliya ka tirtay qariirada kuna darsatay dalkeeda Somaliland oo ka hadashay safarka la sheegay inuu Uhuru Kenyatta ku imaanayo magaalada Hargeysa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo Kismaayo uga dhawaaqay go'aan ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo ilaalada xeebaha Maalta oo badbaadiyay boqolaal ruux oo muhaajiriin ah intaas daawadayaal waxa hayeen qodobadii duurnimo kuwooda ugu waaweynaa iminkana ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar si aad ula socotid wararkii ugu dambeeyay halkan aan soo galino adigoo jooga goobtaada shaqo iyo gurigaagaba aan ku horeyna markan maamulka galmudug ayaa ka hor yimid go'aan ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay shaacisay habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada hase yeeshee go'aankaas waxaa ka soo horjeestay maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha galmudug Burhaan Maxamed Samatar ayaa sheegay in aan lagala tashan warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa habraaca doorashooyinka isla markaasna ay tixgelin siin weysay waxa uu soo hadal qaaday hadalkii xalay ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir oo ahaa in doorashada madaxweynaha galmudug ay dhici doonto 4 bisha July ee sanadkan waxaana uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ee meesha ka saartay awoodii doorashooyinka ay ku lahaayeen dowlad goboleedyada isagoo la hadlayay idaacadda BBC-da laanta afka Soomaaliga ayuu sheegay in xilliga doorashada galmudug ay ku qoran tahay dastuurka galmudug iyo heshiiska galmudug iyo ahlu sunna ee dalka Djibouti waa maamulkii ugu horeeyay ka soo horjeesta habraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada oo xalay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya dhanka kalena maamulka Somaliland ayaa ka hadlay safar la sheegay inuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku imaan doono magaalada Hargeysa xukuumadda uu hogaamiyay madaxweynaha Somaliland ee Muuse Biixi ayaa markii ugu horeysay ka hadashay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu booqasho ku imaan doono caasimadda Somaliland ee Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Faratoon ayaa sheegay in aan weli si rasmi ah loo qorsheen socdaal Uhuru Kenyatta ku imaanayo magaalada Hargeysa balse ay rajeen doonaan mar uun inuu halkaas u imaado wasiir Faratoon ayaa sheegay in Somaliland ku rajaweyn tahay inuu mar uun yimaado madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta balse hadda aysan jirin wax socdaal ah oo la qorsheeyay uu ku imaan doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta magaalada Hargeysa wuxuuna intaas ku daray madaxweynaha Kenya dalkeena wuu imaan karaa oo socdaal uu ku imaan karaa sida uu madaxweynaheenu uu socdaal ugu tagi karo Kenya iyo wadamo kaleba waan ku rajaweynahay in mar uun dalkeena u yimaado madaxweynaha Kenya iyo madax kale ee caalamkaba laakiin socdaalka rasmiga ilaa ay hadda lama qorsheen ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayay qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyay Rashid Cabdi oo qabiir degan Kenya oo falanqeeya siyaasadda gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika Rashid ayaa qoraalkiisa ku sheegay in madaxweyne Biixi uu booqan doono Kenya halka madaxweyne Uhuru Kenyatta isna uu imaan doono Somaliland sanadkan gudihiis geesta kalena wararkii ugu dambeeyay weerar xoogan oo ka dhacay Jubbada Hoose iyo Jubbaland oo sheegtay inay ka hortageen weerar qorsheysnaa oo al-shabaab ee la damacsanaayeen goob ciidamada Jubbaland ee fariisin ku lahaayeen ururka al-shabaab ayaa xalay weerar qorsheysan ku qaaday saldhigga ciidamada Jubbaland iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose weerarka xoogiisa ayaa ka dhacay deegaanka Balisqoqani oo ka tirsan Jubbada Hoose waxaana la sheegay in al-shabaab ay weerar qorsheysan halkaasi ku qaadeen mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ee deegaanka Balisqoqani ayaa sheegay in ay ka warheleen weerarka qorsheysan ee al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka isla markaasna ay iska difaaceen sida uu sheegay dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare kala duwan balse labada dhinac maysan shaacin waxyeelada ka dhalatay weerarka oo saacado socday weerarka ayaa yimid kadib markii al-shabaab xubno ka tirsan ay weerar xoog leh ku qaadeen saldhigga ciidamada Jubbaland iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanka Balisqoqani iyadoo muddo halkaasi ay ku wada dagaalamayeen labada dhinac gudoomiyaha deegaanka Balisqoqani Muuse Macalin ayaa sheegay in dhankooda aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dagaalkaas hase yeeshee ay arkeen meed ruux ay dileen kadibna ay meesha uga tageen
weerarka xalay al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Belisqooqaan ee gobolka Jubbada Hoose ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli gobolkaasi uu abaabul dagaal uu ka wado madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Jubbaland waxaa marar badan ka dhacay weeraro qorsheysan oo ururka al-shabaab ku qaadeen saldhigyo dhowr ah oo ku yaala gobolada Jubbooyinka, waxaana weerarka ugu xoogan uu ahaa weerarkii ka dhacay deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo. dhanka kalena dowladda Itoobiya ayaa Soomaaliya ka tirtirtay qariirada kuna darsatay dalkeeda qariirada Afrika oo lagu tixgeliyay wadamada Afrika. website-ka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa la soo dhigay maab ama qariirad la yaab leh oo si cad loogu xadgudbay madax-banaanida iyo qarannimada Soomaaliya. qariiradan oo hatan qaaradda Afrika ayaa gabi ahaanba laga tiray Soomaaliya oo sida muuqata lagu daray Itoobiya laguna muujiyay qariirada in Soomaaliya ay ka tirsan tahay Itoobiya. waxaa sidoo kale yaab leh in Soomaaliya laga reebay dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay ku darsatay sida ka muuqata qariirada, isla markaasna Somaliland laga dhigay dal madax bannaan oo ka tirsan Afrika. lama yaqaan sababta Itoobiya ee sidan u sameysay iyo ujeedada laga leeyahay, balse waxaa cad in hamiga Itoobiya ee in mar uun ay baabi'iso kuna darsato Soomaaliya uu bannaanka yimid. qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doorto deegaanada maamulka Jubbaland ayaa Kismaayo kaga dhawaaqay in ay ka hortagayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay doonayso inay u gasho maamulka Jubbaland sida doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo kale. senatarada kale ah Iftiin Xasan Baasto, Axmed Xaashi iyo Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ee been ka sheegeen amniga maamulka Jubbaland. waxa ay sheegeen in haddii dowladda dhexe ay isku daydo in ay fargeliso doorashada Jubbaland in ay ka hortagi doonaan, isla markaasna maamulka Jubbaland ay ka dhici doonto doorasho xalaal ah. senatarada kale ah Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto ayaa sheegay in ay la socdaan qorshe ay wado dowladda dhexe oo xiisad amni darro lagu abuurayo deegaanada maamulka Jubbaland, isla markaasna ay qaadi doonaan doorkooda si looga hortago arrintaas maadaama ay la socdaan dhibaatadii dowladda Soomaaliya ee ka geysatay magaalada Beedhabo. magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda qabanqaabo ku aadan doorashada kuraasta baarlamaanka iyo madaxtinimada maamulka Jubbaland. annagii baa u doodayno, annaga idin sheegayna marka golaha sanadka iyo golaha shacabka iyo xukuumadda federaalka ah war annaga Kismaayo joogna, Kismaayo nabad weeye. war annaga Kismaayo joogna, Kismaayo nabad weeye. Kismaayo dhibaato kama jirto. haddii aad rabtaan imaado noo imaado oo nabadda wax nagala saxa. intaas waa fariintii xagga naga federaalka aan isu diraynay. xagga beesha caalamka warqad habeen meel mugdi lagu qoray iyo dad mugdi ay qoreen ha dhegaysanina. waxaad dhegaysataan salaadiinta dhegaysta, waxaad dhegaysataan haweenka dhegaysta, waxaad dhegaysataan dhallinyarada dhegaysta, waxaad dhegaysataan golaha baarlamaanka dhegaysta. Jubbaland sharciga leedahay, sharci dejin baa jooga wareysta. waxaad wareysataan kuwa dhahaya maxaan ku dhahdaa ciidamada halkan ma joogaayo ma maamuli karaan. ciidamadii nabadgelyo dhaliyay seebayna u maamuli kareen doorasho hal maalina. ciidamadii nabadgelyadan abuuray seebayna u maamuli kareen. way maamuli karaan, ka badanna way qaban karaan, ka badanna waa lagu aamini karaa ciidamada. intaas ay kula dardaarmay Jubbaland oo sidii bilaha. waxaan ka jawaabayaa midda ah waxaad noo dirsateen inaan idinku mathalno dowladda federaalka ah. dowladda federaalku duulaan baa idinku soo tahay, dowlad goboleedyadii bay ku soo duushay inay idin burburisay rabtaa. tubaha duminta tuba la dhahay samaysatay. u fiirsada, tubaha duminta tubin la dhahay samaysatay. tubay u kala saartay oo lagu duminayo dowlad goboleedyada. u fiirso ra'iisul wasaaraha markuu hadlayo, u fiirso madaxweynaha federaalka markuu hadlayo. wax kale kama hadlayo in la dumiyo dowlad goboleedyada ay rabaan. amniga dalkeena khalkhal la geliyay rabaan. ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada xeebaha Maalta ayaa badbaadiyay 100 ruux oo muhaajiriin ah. ciidamada ilaalada xeebaha Maalta ayaa badbaadiyay 216 ruux oo isugu jiray qaxooti iyo muhaajiriin kadib kolkii iyagoo la socday laba dooni laga helay badweynta Mediterranean-ka ay ku laashay jasiiradaas. afayeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in maalinimadii Jimcaha labadaasi dooni laga soo qabtay meel koonfurta kaga beegan Maalta kadib howlgal ay ku dhawaaqeen kooxaha heeganka u ah xeebahaas. dadkaasi la badbaadiyay ayaa lagu soo waramayaa inay ka mid ahaayeen haweeney uur leh iyo caruur kuwaas oo ilaa hadda aan la xaqiijin dalalka ay ka soo kala jeedaan. cimilada oo degan awgeed ayaa sababtay in labadii cisho ee ugu dambeysay ay bataan dadka ka soo hayaamaya dalalka Liibiya, Tunisia, Algeria, waxaana magaalooyinka Sicily, Sardinia iyo Lampedusa gaaray 12 doon oo la socdeen qaxooti iyo dad muhaajiriin ah.
wararkaas aad daawateen ayaa ugu waaweynaa daawadayaal duurnimadan wararka aad idiin heynay aad kala socoteen janaalka wararka online haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socotid wararkii ugu dambeeyay daafaha caalamka inaga soo gaara aan kugu soo gudbin halkan adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna gamaleelka furanaya si aad ula socotid goor walba wax walba aan soo gelin waad ku maasan tahay saxaabada cusub ee nagu soo biiray haddii aad ku cusub tahay fadlan aad nagu soo biir